الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أقدم عليكم تحية العذراء، تحية الشريفة، تحية أطيب التحيات بها الكون، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال dad badan oo influencer facebookgeeku ah oo walaalo ijecel ah oo sharaf leh oo khayr badan ayaa markaan ka hadlayaan dhahaya raggeena Soomaaliyeed waa diamond ayaa kasoo falceliyay. markaan dhahaya ragga Soomaaliyeed waa diamond ma ahan wax aniga aan iska dhahay, ma ahan wax aan iska dhahay ma ahayn, laakiin wax reality ku qatoonta oo runta ku taagan waay. markaan ku leeyahay ragga Soomaaliyeed waa diamond waa sax waaye, waxaan fikir aniga aan iska keensaday ama aan iska dhahay ma ahan. ragga Soomaaliyeed waa ragga adduunka ugu sharafta badan ilaahay uuna siiyey, waa hanti ilaahay uuna siiyey aan kaga duwannahay dadka kale waay. guud misaala idin siinaa, misaal sax ah oo wanaagsanaan idin siinaa. misaalkaas wuxuu yahay ama examplekaas wuxuu yahay gabadha Soomaalida markii la guursanayo reerkeeda ayaa laga soo doontaa, hooyadeedii aabaheeda ayaa loo tagaa, si sharaf leh ayaa taqadum loogu sameeyaa. gabadhii waa laga doontaa, waa laga soo guursadaa. gabadhii waa laga doontaa, si sharaf leh looga soo guursadaa, waa la guursadaa, alaabaa loo dhigaa, dahabaa loo gadaa, aroos fiicana loo sameeyaa, guri ayaa la geystaa. kadibna masaariif ayaa la siiyaa, hadday shaqaysato iyo hadday shaqaysanin intaba masaariif ayaa la siiyaa. iyadii ayaa loo heegan yahay. ilmo markay dhasho si fiican ayaa umusha looga bixiyaa, dharkii baa laga bedelaa, gurigii baa laga bedelaa. wuxuu nin walba tabartiisa uu ku taagsado ha yaraato ha badnaato. qiimo ka weyn oy gabar Soomaaliyeed ay leedahay ma lahan. qiimaha kale ee gabadha Soomaaliyeed ay leedahay oo raggeena ayna qiimeeyeen ayna siiyeenaa waxay tahay hadday wiil iyo gabar isqabtaan, mar walbo hadday gabadha gardaran tahay iyo hadday gar leedahayba wiilka ayaa gardarada la saaraa. waa dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana loo saaraa, waxaa la yiraahdaa waa gabaree marka ugu horeeyay maxaad ula dagaashay. waa gabare marka lagu leeyahay waa gabar inaad la dagaashaaba khalad ah, macnaha qiimo aad iyo aad u weyn waaye in gabar Soomaaliyeed wiil uu la dagaalo ama uu qashqashaado. waa qiimo dhacayay u tahay Soomaalida. waa sharafta ilaahayna siiyey nagu manaystay, raggeenana ayna siiyeen. waa gabar in qadul axmar ay tahay in la gardareeyo ama dulmi lagu sameeyo. taas waa mid adduunka kama dhacdo. baabuur haddii la raacayo ama meel public lisugu yimaado gabar oo taagan in wiil Soomaaliyeed fadhiyo abadan oo uga kaca kursi. waxyaabaha aan oga bedelanahay adduun weynaha waay. raggeena Soomaaliyeedna ay aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin kuna qiimeeyeen gabdhaha Soomaaliyeed. adduunka meel laga helo malaha. adduunka haddii train la raacayo gabar xaamil oo taaganaad arkaysaa oo nin iska fadhiyo, laakiin nin Soomaaliyeed meel gabar Soomaaliyeed ay ku taagan tahay ama ku dhibaateynayso lagama yaabo inuu fadhiyo. raggeeni hore Soomaalida ah haddii gabar wax la soo yeelo geeri ayaa dhici jirta, waa la isku dagaali jiray. gabar waxay ahayd qadil axmar bay ahayd in la taabto ama dhib loo geeyo, ilaa haddana ay tahay. raggeena Soomaaliyeed markaan dhahayo waa diamond waxaan oola jeedaa waxyaabo aniga aan iska keensaday ama maskaxdeyda aan ka keensada ma aha, laakiin xaqiiqatan waa wax xaqiiqo oo daboolan aan raba inaan daaha ka qaado, tusana gabdhaheena in wiilasha Soomaaliyeed ay yihiin diamond aynan u cararin ajaanibta. li'annu nin Soomaaliyeed waa kanzi waaye, waa boqor waaye, boqor ilaahay baa boqore, waa boqortooyo anaga noo khaasa waaye. laakiin mararka qaar gabdhaha haddaan nahay kuma xamdino mana ogaano, laakiin walaalka aqliga ku jiro ayaa kugu filanaa la yiri. anaa raba inaan idin sheego, waxaana jeclaanaa inaa iga aqbashaan igana dhegaysataan gabdho. waxyaabaha adduun weynaha aan kaga duwannahay oo wiilalka Soomaaliyeed ay boqor ay diamond ay ku yihiin waxaa ka mid ah gabadhii markii la guursaday guriga la geeyey, hadday shaqayso iyo hadday shaqaynin biil ayaa la siiyaa. wadamadaha kale adduunka muslim ama khayra muslim gabadha iyo ninka markay isguursanayaan lacagaha way isku darsadaan, arooska way isla bixiyaan, guriga way isla dhistaan. waa fahan soo ma aha. waxay isla aadaan wax la yiraahdo honeymoon ay isla aadaan.
nin walba tikidkiis iyo wixiis isa iska bixinayo waa la isku darsadaa waa hanti la isku darsanayo waa biilka soo ma aha gabadha iyadana way bixinay ninkan uu bixina maxkamadaha markaa fiirisaan fiiri meelaha oo veterinary courtiga iyo meelahaas iyo markii la yimaado adduun weynaha maxkamadaha wax dacwad dhacayso ninkan ilmo buu igu inkiray ilmuusaan igu yeelay biil ima siiyo waxa dhacayo wad arkaysaa anaga hooyooyinkeena sariirta ay jiifaan alxamdulillah way raaxaysanayaan ilmahooday haystaan naaskay siisanayaan qadadoodii ay karsanayaan adduunka ma jirto meel ya gabar la guursaday booyaaso loogu qabto u shaqaynayso hooyadiina ay sariirta jiifto meelaan Soomaaliya ka ahayn ma jirto Kenyadana u soo dhow wadamadan dariskana la ma arkaysaa naag walba beerteeday soo falanaysaa biyaheeday soo dhaansanaysaa gurigeey karsanaysaa xaamilo waaye raashinkeeday karinaysaa qof u shaqaynaysa malaha anaga Soomaali haddaan nahay raggeeni shaqaale noo wada qabteen gabar walba gurigeeday joogtaa ninkeeda suuq ugu soo shaqaynay gabar shaqaale u joogto hoosheedii iyadoo qabsan karto hooshiyaa loo qabtay yaa noo sameey raggeena noo sameey ilaahay baa idinku dhaariyay qofkaas dheeman ma ahan dahab ma ahan waxaa loo baahan yahay gabdhow aqligiina shaqeeya raggiina gacanta ku dhiga gabadhii nasiib u yeelatay inuu ilaahay nin xalaala siiyo ninkeeda gacanta ha ku haysato ilaahay ha ku xamdiso ha ku shukriso midaan haysanina ha ku duceysato inuu ilaahay siiyo say baari ah Soomaali ah daacad ah oo xalaal doon ah oo dhaqanay inuu ilaahay siiyo ha ku duceysato aniga gabdhaha Soomaaliyeed intaasaan u hayaa raggeena aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol sharafaad naga mudan tihiin cizaan naga mudan tihiin wanaagaa naga mudan tihiin khayr baa naga mudan tihiin walaalayaalow samcan wadaacan waxaan ahayn oo aad naga mudan tihiin malahan inaan idin hogaansanaanaa naga mudan tihiin inaan baari inaan idin noqonaa naga mudan tihiin diinteena ayaa qabto gabadha inay ninkeeda baari u noqoto carabta waxay dhahan kullu raajul saalix wara'ahu imra'a saalixa gabdhaheena boqolkiiba boqol way wanaagsan yihiin laakiin mawduuca aan ka hadlayo oo dhowr commentiye igu soo noqotay gabdhaha qaar walaalahayna ay idaheen maxad aad gabdhaha uga hadli weysay gabdhaha maalintooda laga hadla gabdhaheena dahab waaye lama heli karo gabar Soomaaliyeed diamond waaye barwaaqo waaye raaxo waaye naruuro waaye waan ognahay laakiin yaanan inkirin wiilasha Soomaaliyeed doorka ay leeyihiin kulligeena aabaana dhalay aboowaana dhalay waad aragtay gabaran wiil la dhalani waa gablantay sax wiilasha diamond waaye ilaahayna siiyay waa fahanteen soo maahan aabayaasheena waaye adeeradeena waa abtiyaasheena waaye aboowayaasheena waaye waa fahanteen ibna cammigeena waaye saygeena waaye asdiqaaeena waaye walaalaheena wax isla barana waaye marka wiilasha Soomaaliyeed waa diamond waaye taas shaki kuma jiro lamana heli karo adduunka lagama heli karo wiil Soomaaliyeed midda kale wiilasha quruxda wiilasheena Soomaaliyeed haddaan wax yar ka taa wiilasheena Soomaaliyeed waa wiilal style leh midabkoodu maarin yahay madow qurxoon ah midna casaan yahay adduunka yaa heli karo lama heli karo wiilasheenu wiilal shaqaysta waay xalaashooda tacbado kii bajaaj wado kii suuqa bakaara ka xamaasho kii sharqaan tolo kii suuqley ah kii dhargado wax walba waa wiilal shaqaysta waay adduunka lagama arko muxuu ahaa wadamada horumara lagu sheegay street children street people ay qabaan dad aan guri lahayn homeless oo wadooyinka iska seexday qabaan raggeena Soomaaliyeed muxuu arkaysaa Soomaaliya nin oo wada iska seexanayo maya intuu wada seexan lahaa uu shaqaysanaya tacabkiisu goosanaya xalaashiisa dhididkiisa gaari gacan haduu ku shaqeeyo xataa wiil Soomaaliyeed sharaf uu leeyahay marka kanziya ilaahayna siiyay boqortooyaan nahay anaga Soomaali haddaan nahay raggeenuna waa ragga adduunka ugu quruxda badan waa fahanteen soo maaha waa inaan gabdhow raggeena diamondka ah ilaahayna siiya aan ka ilaashana gabdhaha kale gabdhaha ajaanibta wiilasha Soomaalida ay u soo cararaan gabdho ana idin sheegay idinka ma fahamsanidin laakiin raggeena intii wax ma garata amaahine inta kale gabar Soomaaliyeed oo joogto lagama yaabo inay ajaanib fiiriyaan meeqa wiilal iyo gabdha Mareykanka Europe Australia adduun weynaha joogo inta wiil Soomaaliyeed oo naag ajaanib guursaday way yar tahay waa in markay dalka joogeen ku xumaayo aan wax baranaynin oo saaqud ku noqdo waay laakiin majority boqolkiiba 98 intii fiicneed ragga Soomaaliya gabar Soomaaliyeed ay guursaday gabdho waxaa noo diiday marka anaga marka ku cararaysaan Pakistantan iyo Carabtan iyo waxaana ku cararaysaan iska daaya
iska daaya nin Soomaaliyeed ras caseer iyo raskaan boodi meel alle meeshuu adduunka joogo haddaad isguursataan bini aadina tihiin aad kala tagtaan ilmahaaga ama waxaa la geynaa Hargeyso ama waxaa la geynaa Kismaayo ama Baydhabo ama Garoobe ama Gaalkacyo ama muxuu ahay Muqdisho ama maxaa la dhihi jiray Dhuusamareeb meelahaas la geynaa haddii la geyno hooyaa tahay waa u tagi kartaa waa soo arki kartaa gabar Soomaaliyeed tahay wadankina waa dhul Soomaaliyeed laakiin cunug Virginia Ohio Columbus iyo Ingiriiska iyo meelahaas aad ku soo dhashay nin ajaanib ka dhalay ya haddaad rabto inaad Soomaaliya soo aado airportka ma soo dhaafay cunugaas waxaa lagu leeyahay muwaadin waa adigana Soomaaliya ta refugee qaxooti ta cunugaagan muwaadin waa wadanka ku cunugii waa laga soo reeb meel hooyada qaxooti ay ku tahay cunugiina oo muwaadin ku yahay kawar ilaahay idin ku dhariyo marka maxaad ku falaysaan ba ajaanib wiilasheenu quruxda badan karabta ka baxso karabta ka guurso haddaad cadaan rabto oo wax cad ba aad rabto Soomaali cadan qabnaa reexamaran qabnaa reexamarka guurso reer barawaanaha guurso gandarshaha guurso hadaaba cadaan rabto maxaa ku geeyay cadaan kale cadaanaba qabnaa originally aan qabnaa Soomaali aan qabnaa luqadaada kula hadlayaan qabnaa oo wadankaaga jooga qabnaa hadduu Yurub joogana wiil Soomaaliyeed hadaaba nin cadaan rabto reexamarka guurso barawaaniga guurso sheeqal gandarsho guurso ma fahamteen haddaad Soomaali maarini madow rabtina qabiiladan kale ka guurso maxaa ku geeyay markaad u carareyso muxuu ahay cadaantooda xataa cadaanteena yaa ka qurux badan gabdho wiilasha Soomaaliyeed ay idinku ogaay anoo nafteeda ka bilaabay